way badan yihiin calaamaadka sixirku waxyaalaha lagu dareemo laakiin inta badan meelaha uu la tafaaculo oo uu la falgalo waxa kamida ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasri uu ku soo diray uu ku noqon karo waa riyada nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam ayaa daliilku ugu ah markii la sixray ninkii Labid bin A'sam uu sixray ee yahuudiga ahaa nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam wuu xanuustay laana kaan bashar nabigu bashar buu ahaa uu xanuusan jiray wax sixirku waa asiibi jiray uu ka caafimaad jiray lidaalika yaani sida basharka caadiga ah ayuu ahaa kabacdi wuu xanuustay nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam markaas qisadiisa ayuu ka sheekeynaya wuxuu yiri habeenada kamida ayaan Aisha radiyallahu anha gurigeeda u hoyday oo habeenka gurigeedan ku dhaxay iyadan yaani ku qornaa kabacdi waan riyood subhanallah fiiriya riyada in lagu arki karo waa waxyaalaha ku tusinaya nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam wuxuu yiri waan riyooday markii aan riyooday waxa iigu yimid laba malag labada malag dushayda katifeenkayga garbahaygaasay anoo jiifa yaani qisadiibu ka sheekeynaya ayay soo dul fariisteen kabacdina markay soo dul fariisteen ayaa mid kamid ah hadlay malaa'igti wuxuu yiri qofkan jiifa maxaa asiibay maxaa ku dhacay isagoo weydiinaya su'aasha malagii kale markaas wuxuu yiri marbuut waa la sixray markaas su'aal kale weydiiyay yaa sixray malaa'ikta Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa wuxuu waxyoon jiray oo nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam soo diray wuxuu yiri waxa sixray nin yahuudiya oo magaciisa aynu soo sheegnay Labid ibn al-A'sam markaas su'aal kale weydiiyay muxuu ku sixray wuxuu ku sixray shal ko timihiisa iyo geedo la isku xirxiray geed timireed kabacdina wuxuu galiyay ceelkaasna dagax buu ka sii hoos mariyay intuu isku guntay timihii iyo lafi iyo waxyaalihii shalladii iyo irbadiiba ayuu subhanallah ceelka hoos galiyay khaasatan dagax hoostiisa يعني النبي عليه الصلاة والسلام ريا لغوت لذلك النبي وحوية ملائكتي ويسيس عطاية معوذتين كي بيكو أخرس أو لغوت سودتشي معوذتين كي يقول عذب برب الفلق يقول عذب برب الناس وحياله النبي عليه الصلاة والسلام كعافي ما ذا بكم ذهاين وأنا لبدا أقوم مهمسا لبدا صورة ضد ومعوذتين ما عذاب اللي يرهدا وكوا لغمنقل markii lagu akhriyo nabigu kaleey salaatu wasalaam kaanama in harkal ay gafurfuray oo kale yaani nabigu ku riyooday saxaabadiisii buu qisada uga sheekeynay sidii uu sixirka uga cafimaaday idan in wax lagu riyoon karo uu yahay yaani waxa la yiraahdo waa waxyaalaha ku tusinaya waxa kale oo jirta qisa aan caam bixin oo laakiin fil ahadith fil athar ku qoran عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين iyadana waa la sixray sida ku qoran ahadiista culimo badan ay saxiixinayaan waxaana sixirtay jaariyadeedii baa sixirtay ka bacdiina Aisha xanuunkeeda waa la garan waayay ka bacdiina nin mu'aalija yimid wuu fiiriyay wuxuuna yiri arinteedu ma aha xanuun caadi ah waa sixir lidalika waxa sixirtay gabadha jaariyada قصة ويدارد لكن أهم شيء إنك وحنا جدنا وحي عائشة رضي الله عنها كريوت سيدي أي اسكو علاج لهيد يعني سيدي علاج كذا يعافمات كذا أي سحر كان اسكو فرفر إلهي سبحانه وتعالى يعني تصريانا كتص عائشة نوي كريوت يضو إلهي كشافنا إذا لبضع قصة هرتو حي كتصينا يعني إن لقو ريون كر هذا موضوعنا أيين أسود دادقينا haddii aad isku aragtid 11 riyo mid kamida ama laba kamida ama qaar kamida ay kugu soo noqnoqdaan daliil waxay taasi u tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu digayo ama kugu tusaaleynayo kugu tusayo in uu jiro musiibada sixir
inuu jiro lidaalika lagu tusay inaad isdaaweysid marka 12 riyo inta badan qaarna waa qaar adilla leh qaarna waa qaar tajribi loo arkay waxa kamida in aad ku riyootid adiga oo mar kasta cunaya timahaaga ama cidiyahaaga ama adigoo cunaya ama cabaya sun waxyaalaha ku tusinaya in uu ku asiibay sixir hadii riyadaasi kugu soo noqotay waa qodobka labaad ama riyada labaad ee ku tusin karta waxa kamida ru'yat al-aqarib wal haya wal afaa'i aragtida aad arkaysid riyada dibqolooc hadaad ku riyootid ama abeesooyin hadaad ku riyootid waxyaalaha labaad ee ku tusinaya waxaana taas ku tusinaya nabiyullaahi Muusa alayhi salaam markii fircoon uu kuwii suxarada ahaa ku yiri la tartan oo ninkan sixir oo gabigiisaba wax way kaga takhalusa xilliga ciida markay suxaradii damacdeen sixirkii tuurto waxay saaudaadiyeen abeesooyin afaaci lidaalika afaacidaas ya abeesooyinka kugu soo noqonaya riyadaadaas waxay ku tusin karaa in aad sixrantahay riyada saddexaad ee daliilun ala an asaabaka sixir waxa weeyaan al-uqada uqadka waxa la yiraahdaa xariga marbuudka ee la isku xirxiray ama wax la isku rakibayo daa'iman hadda taa ku riyoonaysa ama dharkaaga lagu rakibayo ama silsilad oo kale sida silsilad wax loo rakibay hadda daa'iman ku riyootidna waxay ku tusin kartaa in uu sixir jiro waxaana taa u daliila nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri man aqada aw kama qaal man aqada uqdatan فنفث فيها فقد سحر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قفك انتو عقدة اسكو حرحره كبعدين وحكو أخرية قفكاسي واسحر قفكاسي سحر بها سمايي ومن يعني أسحر الناس كدتك سحرنا وحلا يرى هذا وقالوا أي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلية تحسن وقضب كتو سكارته waxa la yiraahdo waxa kala ku tusi karta Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa min sharri an-naffathati fil 'uqada wa min sharri yani shar midkeed in laga magan galo an-naffathati bimaana al-mufassirin waxay ku fasiraan naffathat waxa weeyaan saaxiraadka ama suxarada wax xirxiraysa ee ka bacdina wax ku akhrinaysa subhanallah wal iyadu billah idan waxyaalaha ku tusin karta riyada afaraad waxay noqon kartaa an tara fil manami saahiran in aad ku aragtid hurdadaada saahir yani saahirka kaanama saahir caadi lagu tusimaayo kaanama wax bahal ah ama nin dheer ama nin madow wax noocaas halka soo fadhiyo oo kale hadii lagu tuso waxyaalaha ku tusin karta idan waxa la yiraahdo waad u malaynaysaa dannigaaga malahaaga ku siinaya inuu waxa uu yahay qodobka afaraad ee ku tusin karta waxa weeyaan an tara najasatan in aad aragtid waa riyada shanaad hadaad ku riyootid an tara najasatan inaad hurdadaada ku aragtid najaasadaasoo way noocyo badan tahay sidaad u arki kartid in waxa la yiraahdo dushaada ay ku qubanayso oo garbahaaga ku daadanayso ama in waxa weey dariiqa lagu sayrinayo ama in waxa la yiraahdo dhar aad jeceshahay waxa la yiraahdo ama aad u danaysid oo kale ay kaaga daadanayso hadaad ku riyootid ولذلك way kala duwanta hadii ay dhar aad jeceshahay oo kale ama aad ugu labisatid ay kaaga daadato oo kale waxa la yiraahdaa waxay ku tusinaysaa taas inuu ninkaagu sixran yahay bil cagsi haday gabadhu ku riyootana ninku haduu ku riyoodan in gabadhiisu ay sixranta hadii aad artiyo dariiq lagu tuurayo inay tahay sixru ta'dil
يعني waxa weeyaan sixirka inay tahay hadii waxa la yiraahdo aad aragtid iyadoo dushaada ku daadanaysa inuu yahay sixrul junuun sixirka waalida يعني waxa weey waana kuwan ugu daran dad aragtay adigoo ay dushaada ku daadanayso walaayada billah idan waa riyooyinka ku tusin karta inaad waxa weey ku asiibay sixir qodobka lixaad waxa weeyaan inaad riyooyinka ku aragtid qowmka la yiraahdo yahuudu wa aslun min usul kuwa sixirka sameeya inta badan sixirada la furfuri kar waayo kuwooda ugu adag halkaas ay naga yimaada subhanallah ولذلك يعني وحبا كتوسينيا يهود نكي اي اصودر شيطان كي اي اصودر النبي عليه الصلاه والسلام لبيد يعني كان كافر بوها شيطان بوها شلما دير بالسي النبي عليه الصلاه والسلام بسحر كتابت سبحان الله اذا وشغل كودا لذلك الدين تؤد بوقدك يهود ايو ان وحويان دقن كودا لا يشو خالف اليهود اي النبي عليه الصلاه والسلام ليه كفوا هذا وخلافه waxay sameeyaan bilcagsi wala sameeyaan qowlka toddobaad ee ku tusin kara in maaragtay uu jiro sixir wal iyad billah inaad ku riyootid qabuuraha ama qabuurta waa min akhdar sixir subhanallah qabuur in aad ku riyootid waa waxyaalaha ugu daran ugu akhdarsan wa hada sihrul qatl weeyaan وسحر كدلك إنك قبور كريوتي سبحان الله انت بدن سحر كاسنا علماء هذا الفن وحير هذان والسحر انت بدن قبرك لو اعصو والسحر القتل لك والسحر هذا قدران والعياذ بالله حتى تريده كريوتي دو كله كددال اما waxa la yiraahdo ku degdeg inaad isquraan saarto riyada sideedaad oo kamid ah riyooyinka sixirka ku tusin karta waa inaad aragtid xayawaanaadka naxiifka ah ama daciifka ah ama sii dhimanaya xayawaan rafanaya isna wuxuu ku jira suxaradu ka ugu daran isticmaalaan ولذلك waxay sameeyaan waa sixrul ma'kul baa leeyahay in sixirkii xayawaan la siiyo ka bacdi xayawaankaas sixirka markay ugu horeysay rakibayaan ayaa waxay sameeyaan xayawaanada ugu samirka badan waxa la yiraahdaa sulxafaaga kamida sulxafaagu waxa weeyaan waa diidinku xayawaanada ugu adkaysiga badan waxa way afkiisa ayaa cuqdadiisa laga xirayaa ka bacdina meel baa la dhigayaa waxbana lama siinayo kullama xayawaankaasi uu xanuusto ilaa marka wax la siin waayo uu xanuunsanaya qofkan kale ee la sixrayna uu xanuunsanaya markasta uu sii tabcaanaya qofkii la sixray ee masxuurka ahaa uu sii tabcaanaya heer marka dambe xayawaankaasi marka yani waxa loogu talagalay inuu muddadiisu dheeraado marka xayawaankaasi xafaaga inta badan ay ku rakibaan idan marka ugu dambaysa waxa la yiraahdo marka bacda mudda ayaa xayawaankaasi dhimanaya qofkiina halis yani galaya inuu dhinto ama ilaahay kaga shaafiyo inuu ka furfuro waayo sixirku waa bur'a wixii lagu rakibay haday baabaan waa bur'a ama jasadkiisa uu baabo ama la gubo lidaalika yani uu furfurma ولذلك haddaad guryaha ku aragtaan inta badanna waan u sheegaa waalidiinta ama dadka guryaha maamula waxay arkayaan ilko waxay arkayaan bahal waxay arkayaan wax dib waxay arkayaan wax la isku guntay wax lagu dhahay waan tuuray barafkan raacay halkan raacay daadkan raacay suuligan ku daray hal gubaa hadii qofku la xagee la geeyay xagee uu yaalo booq baa dhalanaya qofkii marka loo sheego subhanallah idan waa inaad gubtaa waa inaad taabsiisa sunnadu waa sidaas uuna burburaya ilaahay damka qodobka sagaalaad in badan dadku ay ku riyoodan subhanallah waana waxa weeyaan inta badan in waxa la yiraahdo qofku intuu meel dheer fuulo ka bacdiina uu meeshaas ka soo dhaco wuxuu ku riyoonay isagoo meel dheer fuulaya dad baa ceyrsanaya
markay cayrsadaan uu ka duulaya meeshii laa nihaa maba dhammaanayo dhulkiina ma gaarayo cirkiina uu ka soo tagay subxaan allah dhulkiina ma gaarayo cirkiina uu ka soo tagay markaas taas dadkii u cayrsanaya وهذا من علامات السحر ومن علامات تدلك يعني أنك مصاب سحر قلبك أقول توانات يعني نحن نقول ضمبية لكن توانات وحويان إن أديكوا مركزتا دقح لغو توريو ميل فوق لغا كسو توريو دقح يتكقبانيس أتكعررسي سبحان الله قلبك كوبي توانات كنتوسين كرتا waxa weey inaad ku riyootid dalacsimta iyo waxyaalaha ay isticmaalaan sida kuulaha sida waxa la yiraahdo waxyaalahan ay isku rakibaan inta badan hadaad ku riyootid iyo waxyaalaha ku tusin karta ay kamid tahay idan waxa la yiraahdo koobi toban ka riyo waa min calaamaati sihr yani inuu ku asiibay wal ciyaadu billah ilaahi subhanahu wa ta'ala binu kama gangalna inta uu asiibayna ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ka shaafiyo koobi toban kan calaamo iyo calaamado badan oo jira runtii laakiin koobi toban kan waa kuwa ugu muhiimsan ee inta badan dadkaas ay ku riyoodaan riyaduna way soo noqnoqotaa 2 3 4 waxaad hal habeen iska riyootay ma aha laba habeen baa lagu tusi karaa 3 habeen way kugu soo noqnoqonaysaa hadii arintaas ay jirto hadii kale waxa weeyaan waa shaydaan kugu ciyaaray oo kale ka dhigata hadii hal habeen uu noloshaada aad aragto waa shaydaan kugu ciyaaray way dhici kartaa adkaartii iyo waysadii oo kale ayaad ilowday